beeraha horta Soomaalida waxa aanan ka bixin oo shay suuqa lagu gadahay waxa ka jiri lahaa baradhadaas iyo kaaroodka bas waxa kala dhan anaka inoo bixi lahaayeen oo beeran lahayn liinta waan beertaa cambada waan beertaa mooska waan beertaa qaraha bahalka la yiri waan beertaa yaanyada waan beertaa bilbiligan beeraa barbaroonigan beeraa wax walba waan beeraa hatta soo lama dhaho beetroot iyo baraayi qashimahan kulli gaalada ay keenta anaga waan haysan karnaa kabajka waan haysan karnaa sukumaha iyo spinachka waan haysan karnaa laakiin wixii mashaqada ka dhacday way beeraheena markay inta isku hagaagaan ee korna ugu kacaan aabiyana lagu imtixaamay beeraha markay intaan abuurano qudaarta ay rabto inay noo soo go'do ama ay dhowdo yaa biyo nagu la soo fasaxi yaad ku soo fasaxay biyaha kuwan Kenya ma nagu soo shidaynaan maxay sababta hadii kulli waxaan malaynaa meelahay ku keedinayeen baa iyagana ka buuxsameen wabiga la iskaga soo furay wabiga markii la iskaga soo furo biyihiisa u socdaan ba beerahay isku soo dhahay khasaare fara badan bay keenayeen qudaarta aad ku dhimanaysaa khasaare injiladii baa la arkaa inay wabiga ka raacaan dib fara badan baan ugu haystaa idan meeshaas biyaha anaga markaan sii fiirno waxaan dhanaa wax ula jooda leh ula jooda laga leeyahay waayo anaga moos baa noo bixi jiray mooskeena dhulka ma uusan dhici jirin biyana lagu fatahay moos iska day xabad liin oo laga goostay way geedii weyna cambada iyo liinta kulli biyaha la tagay marka ayaga oo mooskooda waligood inta aan keenay xabada gaalada ay gadanayso moogaani maan jirin mooskooda marka ari ilaahay la soo fatahay ka anaga marka wuxuu noqday wax inta la eegnina ma warrabo hadaad gaari idil ka keentid beerta kii beeraha Soomaalida miyaa baa lagu dhigay maxaa way uu halaa bihi baa halayeen marka sanad walba dhacdaa bas sanadkii walba jeer bay dhacdaa xilliga beeraha noo baxaan oo aad tiro maanta ugu fiican tahay awal arka beerta saakay inaad gaar ugu qaylisato adoo gaariga ku maqan oo wali beerta uu soo gaarin wabiga intii la soo siiday inaba meesha oo ewer baad imaato biyo aad gali waas ay ma ka dacwooto markaantaas waan qaylisanay wax noo qabtana maana arkin marka anaga intaanan baradhada ka ahayn iyo beetroot iyo baasho waxaan ka ahayn inuu noo baxo yaan aaminsan wuuna noo baxayay liimada dhanaanka noo bixisay midda macaan baa beeraha qaarkood ka bixisay nin walba iyo hantidiisa sidoo u haysto qof baa xoolo lacag laho beerahooda meel galiyaan marka wax walba ka baxay haddana wax aan ku heelna beerahi malo hadii lagu hayo laga soo gooyeen 2 shilin buu naga noqon anaga wiilasha say ugu daalahayaan oo abuurahayaan iyo 2 shilin naga noqonbo waxaan ragaysiyaan beeraha Nairobi ka imaadaan qudaartooda taas la jecel yahay oo naga qaadanaya tanada lama qaadanayo wax badan oo intaan abuurnay waxba aan ka helin oo markaan suuqa keenay aan ku khasarnay waa aad bay u badan tahay qaalada anaga suxun bay noogu jirtaa oo waxaan biyaha soo daaday suxun bay noogu jiraan oo magaaladii oo lacag la'aan oo waxa anaga beeraheen aan ka soo goosanay aan dhaqaaqeynino oo gadmeenin liimadaan leenahay oo liimban beeradaan leenahay oo cambadaan leenahay oo mooskaan leenahay oo yaanyadaan leenahay oo basasha kutunguugan baan leenahay wax walba ka baxan beeraheen oo babaygan haysanaa laakiin hadda waxaan ku irbihiyaas xun u saameeyeen wax aan ku heeno mal mooskaas yaryar baa hadda laga soo gooyaa iyo barbarooniga gaalada marka kooda uu jirana waa 200 kaanaga markuu imaadana waa 40 shilin ma 30 shilin kiilihiis ilaa goorma markii dhibaatada haysatay ilaa waxaan haystaa intaan beer bilaawno sanad walba 2 jeer baan khasaaradaas ina soo gaadhay kalabada hadda beeraha wixii looga cajisay waa saas wali waxa codsan lahayn in nagala joojiyo beeraha xaq wax ka imaanay magaalo way dumisay wayna duminaysaa way hadii marka saan wax ku socdaan tabcashada beeraha miska dayaysa ma soo wadaysaa hadii hadda waswaas baan noo hayaa hadii wixii aad ku rafaadaysay suuq baad u helaynin marka hadii kuma sii socon kartid mar wax waa khasaare